dhammaantay waxaan u joognaa hawl ka mid ah hawlaha aanu qaranka u idmanahay inaanu qabanno waxaanu joognaa garoonkii waxaanu sugaynaa xuduudihiisa hadalka badin maayo waxaan ku soo dhaweynayaa meel oo ah injineerka hawlaha guud wafdi uu hogaaminaya agaasimaha guud ee duulistii hawada oo ka koobnaa wasaaradda hawlaha guud oo tiim injineero aan hogaaminayo waxaanu maanta u nimi in la sugo cabirkii ama dhulkii uu lahaa airportku haddaan ka warramo backgroundka garoonkan September 1988 tiimkii ka shaqaynayay ee bilaabay ayaan ka mid ahaa sabeyskii iyo beyskooraskiiba waa la dhigay wuu garaacan yahay waa garoon la isticmaali karo kaliya wuxuu u baahan yahay grader lagu xaadhow nimanka geedaha yaryar ee ka soo baxay sidaa awgeed maadaama ay degmadu u baahan tahay garoon degmaduna ay tahay degmo ay cunaqabateeyeen buuro ku wareegsan si adag baa lagu helay markii sahanka loogu jiray halkan haddii halkan cidhiidhi la geliyana way adag tahay in soona boorama laga helo barxad noqota airport oo kan u dhiganta sidaa daraaddeed maamulka dawladda dhexe iyo ka dawladda hoose gobolka dadweynaha wuxuuba waxay ku qasban yihiin in la ilaaliyo garoonkan dhulkiisiina la sugo goobtani waa goobtii madaarka Borama sida injineerku sheegay waa goobtii loo asteeyay ahaana jirtay madaarka Borama kuna shaqayn jirtay marxaladaha kala duwan ee uu ka sheekeeyay agaasiga dhulka hawlaha guud umba waxay technicality injineernimo iyo wixii oo dhan iyagu ku kooban yihiin sidii madaarka xadkiisa loo cadeyn lahaa iyo sida feniskiisa wax looga qaban lahaa iyo sidii madaarka looga shaqayn lahaa bay dhammaantayo hadday tahay maamulka dawladda hoose iyo maamulka gobolka oo barasaabkii uu ku maqan yahay magaalada Hargeysa iyo dawladda dhexba ka dawladahan waa in madaarada dalka oo dhan laga shaqeeyo waa hay'adda duulista iyo madaarada bay ugu jirtaa qorshaha in mar walba madaarada la horumariyo maanta waxa u socda wafti ballaaran oo la soo diray oo la yidhi soo suga xuduudihii wararku tiri kuteen ah oo iska aan saliyar haad lahayn ayaa waxa la geliyay dhulka airport-ka la baabay maanta way caddahay inaan dhul airport leeyahay oo la boobay aanay jirin wala arkayaa demarcation xuduudihiina waa la sugayaa haddii Ilaahay dhaahdo waxaana loogu talagalay marka xuduudaha la sugo in wixii ku baxay dhismihiisa umuurihiisa loo gudagalay laakiin horta waa in airport-ka la helo intuu yahay xuduudiisa halkay ku ekayd halkuu taagan yahay waxa marka la gaadho ayaa la oranayaa okay maxaa wadisnagas maxaa ku xiga marka maxaynu qabanaa laakiin iyadoo wali hadallo ku tiri kuteenaya mugdi ku jiro runtii waftigan waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay wixii gacanad nooga baahataan waa anagu heliyo hobad garab taaganahay waxaan idin sheegaynaa inta badan dhul marka laga hadlayo meel dawladda hoose la xantaa anagu waa ka soo deedika marxaatiya inaanu ka madax banaan wixii soo galena waa wuxuun beerleeya oo dadkii markii hore bixiyay imikana diyaar oo ah wixii horumar diyaar u ah way laakiin wax kale oo meesha ku jira ma jiraan iyaguna maanta waxa weey inta aan la isticmaalayn ba xoogaad ee damacyadu guriga iska imanaya oo way soo durkaysaa baash laakiin kol hadii maanta loo soo dhaqaaqay airport-kii in la sugo xuduudihiisii kadibna hawshiisa loo dhaqaaqo insha Allah wax rajeynaya soo ugu dhaqso badan inuu uga bilaabmo meel uu ka warbixiyo ragii sameeyay buu kamid ahaa 88 isaga maanta cid uga xoogaalsan ma jirto waanu arkayaa dhinaca hadii laga soo durkay iyo dhinaca ay wax ka dhiman yihiin baa arkayaa waanu idin cadeeyay airport-kii warkii been tahay waa lagu soo durkay iyo sheegashada inaanay jirin wixii la bixiyay sidii loo bixiyay inay yihiin wixii dhinacyada darafyada ka soo kordhay inay yihiin waqooyi iyo koonfur dhinacyada wixii galbeed iyo bari wixii kaga soo durkay ma badna haday jiraan waa meela waa jaga iyo labo aan dhismay lahayn taasina waxa weey garoonkii inuu shaqeeyo oo la baraxo
annagu ka dawlad hoose ahaan diyaar baan u nahay ka gobol ahaan diyaar baa loo yahay bulshadu way u ciil qabtaa oo diyaar bay tahay wasaaradda iyo hay'adda dawladda waxaan leenahay waa idinku mahadnaqaynaa culays baan haysta culayska hadda naga dul qaadeen oo maanta loo soo amba baxay dawaada ka dul waan idin ducaynaynaa annaguna waxaan isleeyahay culays baad naga dul qaadeen runtii isku duwahana kulley cabdiwahaab wuu joogaa horena kulley waa dardaaran waa u tidhaahdeen shaqaalahaaga waxaan sheegayaa garaadka marka in nin walba shaqadiisa ku ekaado qof walba waajibaadkiisa fushado airportkan iyo lixijecladiisa cidda ugu horeysa ayeenaysa number 1 waa shaqaalaha ku mishaahar qaadanaya ay waajibaad ka saaran yahay inay ilaaliyaan inay warar isdhaafa oo aan meesha ooleynay keenaan ama dadka u kala dudusaan ma aha iyaga laftigooda ay muqarrabiin ay noqdaan waxa weeyaan airportka iyo sugistiisa iyo nabadgelyadiisa nabadgelyada ciidanka u qaabilsan administration ahaan maamulaha ana dawlad hoosaanida kala jooga isku duwihii baa halkan jooga ciidankii baa heegana waxa weeyaan bulshaduna waa diyaar waa idin taa ana idin cadeynay bulshadu waa u diyaar wixii horumar ah halka laga sameeyo inay kaalintooda buuxiyaan duulaa hiraado